شيخ سعيد وكم أغلى ها بس bilaabanaynaa linkiga hadhow aan kula wadaagayna markaan live ka bilaabno Facebook live aan ugu jirnaa muuqaalka iyo maqalkaba haddii aad furan karto way fiicnaan lahayd واي يا رسول الشيخ حمان كان أنكو تاجنا نقول ليدي ما يعرف تايم مكان سيفي أنا هذا سيفي أنا نكو أرجنا كونا مقالنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جودهنا صحابته ملك سجوكتان كحرا برها بالشدة جري سمو هذا هان له آلة زومكا وأنا عشر رضا توسكا أكو بحنو إيوه فيسبوك لايف كبا نو يرد القاطع قدر كيركا هاي شاني تمن كمرير أن يرد دي بدعني وحن هجاجين إني خدك يقابك وشقين لها هدي أن يدل قاطع وحير الشيخ أنا ودير اللينك جري سما بيتك سيو وشير جري أصحابتيس شيخ وبلاوينا جوردو أصحابتنا ويكون جيران زوم كا يكون ديارسيهين فيسبوك ونا لايف واي أيها لفتكوا إنت استوتوسينايان أيانا نجنا إسكودينا هنا اللينك يقول سوى داعنا رنتي وعشر مدة للسوقي أنا سلايا هاي دور جر أيها النصر تجلي ويسي مركا إن شاء الله تعالى عاوة أيها إلهي قدري إن أو النصر تجلو سواء سمع كم مغليا سواء سمع كم مغليا هذا مغلي شيء هذوك شيخ واكم مغلا waxaan isku dayayaa inaan linkiga soo siiyo oo page-ka insha Allah si aan muxaadaradeena toos u bilaawno asxaabtuna way soo wada xaadirayaan mala liska waan kayga Facebook aan galiyay ha hadii kaaga aad geliso waa iska bilaabanayna marka Facebook aan galiyay insha Allah halkaas ay kala soconayaan bes خلاص dalkaas gelisay okay way السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتنا قيمها بدن سود وهذا مالك سود جوكتان وحن قبلا سنين عاوة كلن كان قيمها بدنا دريال كدمرك شيخ سعيد راجع إلهي سبحانه وتعالى خير بدنا كسيو وقت قيمها بدن ونلقى دنايو وأنا رجين إن الشيخ وأنا قاعد سنين إنه وقت كلنا لسقاطه وعاو كليه وسمكوا كان دونين شيخ سعيد قولي السماء كسر دو وكشق يسا أرمها قيسك magaalada muqdishona saldhigeedu weyn uu yahay deegaanada kala duwan ee Soomaalidana ku baahi doonta mustaqbalka dhow dal iyo dibadna aad loola socdo cashiradeeda qiimaha badan talooyinka tababarada iyo taageerada guud ahaan qoysaska Soomaaliyeed waa xarun runtii u istaagtay qoysaska oo aan wax ka hadla arkin arrimaheeda inay ka hadasho waxyaabaha qoysaska haysta soo bandhigto wixii dhaliil ah oo muuqdana la saxo wixii baraara iyo wanaag la gaarana lagu booriyo qoysaska si ay hore u sii socdaan dhalinyaro Soomaaliyeed iyo odayaal Soomaaliyeed ah guriyasama asaasay iyo hooyooyin Soomaaliyeed culimada waaweyn ee Soomaalida meel kasta joogaan qayb ayay ka yihiin waa adiga nagu soo biiray laftirkaagu oo cashiradaada iyo muxaadaraadkaaga aad loo xiiseeyo loona jecel yahay waxa la sheegaa aan kula kabtamay Sheekh Saciid dhinaca haweenka ayuu aad canaanta iyo ushiisa dul saaran tahay marka caawa mawduucaana adigu naga codsan ayaan anagu ku soo raadino oo codsanay in bal daryeelka dumarka si guud mawduuc noogu dhashay in Sheekh Saciid ka hadlana aan yani anagu aan go'aansanay taas aan kugu soo raadinay bal guriyasamo ku soo dhawow iyo taariikhdaada kooban hadii aad la wadaagi karto kadibna mawduuca taas noogu bilowdo soo dhawow Sheekh Saciid بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين
آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله اعلموا أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حقيقة أنا waxaan isu haystaa in ragga xuquuqda dumarka iyo mucaamaladooda iyo caynka karaamadooda iyo sharaftooda loo ilaaliyo ragga dhexda u xidhay waxaan isu haystaa inaan ku jiro front line-ka kuwa lagu tilmaamo ee xaqa gabadha ama xaqa dumarka ama xaqa inanta ama xaqa hooyada u halgan ee had iyo goor difaaca way iska jirtaa marka xaqa la sheego xaqu waxay yiraahdaan laba qof kama wada qosliyo xaqu Umar bin Khattabna wuxuu oran jiray yaa xaq ma tarakta li saaxib xaqo saaxiib iimaad reebin buu oran jiray marka xaqa la sheego laga yaabaa inay dadka yara xumaadaan ama ay yiraahdaan mala siciid annaka wuu nagu yara adkeeyay waxaan idinku ballan qaadayaa dumarka marwooyinka dhageysanaya kalimadan in ragga aan ku yiraahdo idinkuma iraahdo shaabuugana dul taaganahay ragga iyo siday mas'uuliyadeedii iyo waajibkoodii qaar badan ay uga hadheen dumarka meel u dhow maan dhigin bilcaks waxaan u arkaa dumarku inay yihiin laftii ama lafdhurqi ama lafdhabarkii ay ummaddu ku taagnayd maanta waxaan u arkaa ummadda nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam inuu ilaahay ku gargaaray dumar waxaana inoo cadaynaysa qofkii uu ilaahay aaminay ugu horeeyay mu'minadii ugu qofkii mu'min ee ugu horeeyay de mu'minad bahda waxay ahayd khadiija bint khuwaylid qofkii ugu horeeyay ku dhawaaqay laa ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah waxay ahayd khadiija ummana khadiija radiyallahu anha qofkii ugu horeeyay dhiigiisu dhulka u dhacay ee ilaahay naftiisa u huray wuxuu ahaa ruux dumara waa sumayya Ammar bay ahayd marka ilaahay subhanahu wa ta'ala halka wuxuu inagu tusaya ama talaawooyinkaas waxay ina tusayaan maqaamka iyo makaanada ay gabadhu leedahay halka laga filayo ayaa halka marka laga waayo gabadhii muslimadda ahayd halkii laga filayay ayaa laga yaabaa annakeena xamiyad na yara qaadanona halkaasaanu ka suganay walaalay halkaasaanu ku dayeen ka heeganayna maxaa dhacay ha u qaadanina marka xumaan ilaahay subhanahu wa ta'ala markuu qadaray qofkii shahaada ugu horeeyay ku dhawaaqay iyo qofkii ugu horeeyay dhintay inay dumar noqdeen taasi waxay ku tusaysaa meeshu ilaahay uu dumarka dhigay sidan iri markay timaado cibaado markay timaado sadaqad markay timaado in halgan ilaahay diintiisa loo halgamayo dumar baa dhexda u xidhay maanta dhimasho iyo iimaan ay aamineen qura ugumay horeynina maanta qurbaha waliba aanu joogno wadankaanu joognay wadamada qurbaha aanu joognay ee caruurtii ay lumeen ay dadkii ay habeen ee dhalanteedkaasi ummadii u kala jeediyay ka dhexda u xidhay waa dumar dadka masaajidada dhiga waa masaajidada dhisa waa dumar dadka caruurta keena masaajidka sida diintooda ay u bartaan waa dumar dadka masaajidka camira ee ku tugada ee wax ka dhigta ee wax ka dhiga waa dumar inta qofkii dafirana waa qof indhala ilaahayna quraanka wuxuu ku yiri walahunna mithlu alladhi alayhinna waxay leeyihiin ama lagu xaqi ay waxay xaq u leeyihiin wixii lagu lahaa waxay xaq u leeyihiin xaq
دن حق ودن ونين حق إليه دمر كنبو إليهين ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وإلهي سبحانه وتعالى يلي حلوغة كذا وحلقة فيلا إن الدين تأوها القنت سيد النكو وها القميو أي دين تبرتو سيد النكو أبرانيو أي دين وحقبتو سيد النكو وحقوق قبانيو حقيقة سيدا نيري دمر كبت سيد ما أنت بقول كيبا بقول رقا إلهي سبحانه وتعالى وحو إنغا أبوري آبهن آدن يهويدن حاوى وشيددن وحي هيد إلهي سبحانه وتعالى علمي جيسا يحكمت ديسا إن اللبضس إسكاشدان إنو ننكو كدغا قبرده إنو كرهيو إنو إلهي سبحانه وتعالى وحو تلقل إن اللبضس إنت إسكاشدان أي دينت إلهي سبحانه وتعالى وهالجمان هو الذي خلقكم من نفس واحدة وإلهي وجعل منها زوجها انتو نفقر إذن كأبوري أيو كأبوري نفتح حاس كيسي قويس كيسي كأبوري ليسكن إليها سيدو دقو قبرنا مرودة مؤمنة دقة صالحة دقة وقبر ننكيدو كدقو وقرقيدو كدقو ومددو أي كدقتو ومد كرو قادة حلقة يابا إن ضد أو هايسان من جاب كنقطي أما عقل جابها كنقطه إن الرجع ما أنت أيهين ضدك وحدين توقع بكرة إن الرجع أيهين أما ضدك دين توح السوق بتأين الرجع قرأ أيهين حلقيا ضد من جاب إن إلى هذا موقع أي موقف كو إسلام كو جبرده ولقي ويصي من كانوا كسر رئيسية هالسنة حقيقة دقات بوقفكتها بالعكس هو يده مكانت بيلاده أنو أبوه لهين قبضه إن أنت اللي أما قبض اللقبة قبض إن أنت اللي مكانت بيلاده قبض اللقبة مكانت بيلاده وينو إيمان دورنا أنت نبينا صلى الله عليه وسلم آدو وردر دار من رقي الضمر با نبي محمد صلى الله عليه وسلم مركو كهد لي عينك اللولا معامل الدمركة وحلقة ورسنشر الدمر كيسي حاسس كيسي عشان لويدي رضي الله عنه يدا عائشة ماذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي عندك بليلي عشان مركو النبي قرقا وصوق له سيدبو هانشري سيدبو اللي لم عامل شري وحيث الرسول كان النبي صلى الله عليه وسلم ألين الناس وأكرم الناس كان رجلا من رجالكم إلى أنه كان ضحاكا بساما كان يكون في مهنة أهله نبي وحيث صلى الله عليه وسلم مركز النبي الشيخ رضي الله عنها قد كتدقوا وناكسن بيتي أيوها ودمرك وقوشل شلعسن dadka ugu karamka badan ee ugu sharafta badan buu ahaa de ragiina kamidana wuu ahaa bay tiri nabigu sallallahu alayhi wasallam سعيد راجع موقف نبي محمد صلى الله عليه وسلم واستاجه كما بيريو حق اي دمركو ليهين كما بوبيو واجب لغو ليهنا ومديديو كما ندل قاديو نبينا وكا دمركا كرامت بوسيي شرف بوسيي وفي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم مركو رجل لحد لي يعينك دمركا ولما عاملان خاصة هبلها عروت لدلي وحي النبي صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين ورقفك سوكريا لبها بلوضو يرير حتى تبلغ إلا أنت سن البلوغ أي قاعد يقان قاريان قاسني قف كاسي جاء يوم القيامة أنا وهو ننكا يقف يا أنا سيدا سنو يوم القيامة هذا النبي صلى الله عليه وسلم وفي رصدا سيديبان أنا مركا
حق إلهي يا النبي محمد وقبرسي وقضوا دي كرا أما ويسي كرا أما وركر ماله نبي صلى الله عليه وسلم أسقى بكرة ورقف كلا بها بلوت سو كوريا أنت بالغ قاري أنت سنك قنقار قاريان أنيق يا أسقبوا للسيدة صانو يوم القيامة وإيماننا عائشة مر رضي الله عنها قبل بأصوق شيء قبل داسي مركا لبها بلوضو يرير بوضتها قبل وقبل فقيرة أو مسكينة عائشة رضي الله عنها حب وحي السيسي تمر بي السيسي وحكا لما هيا بيتري تمرتا سان هيا تمرتي في رواية قاركود صدح بي صدح حبو تمري سيسي مدبح بض بي سيسي عقبله يريرا تمرتي مدول بتيدي ويسكعنتي إسلامتنا ما هو يدنا حبت ديدي ويحيسا ولي وعرور هو يد بسدا او اغان هو يد انت تمرتي قاديبه او كلا جيخدي او كلا قيبسي ويسكب نبي صلى الله عليه وسلم وصوق لعائشة يا رسول الله سدا صار دعدي نبي محو يري والحديث في البخاري قال من ابتلي من هذه البنات بشيء كنا له سترا من النار نبي wuxuu yiri qofka habla dhalay habla la siiyay imaam an-nawawi wuxuu ubtiliya lagu imtixaamay wuu nabigu sallallahu alayhi wa sallam buu waayo dumarka jaahiliyada asr al-jaahiliya wala yasi jiray oo ninka awlan u dhasho uu farxi jiray uu ku faani jiray inan bay dhashay qofka u dhalato ama ninka u dhalato inanna ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من الناس مركا وجهيسا مذوبان شري تتكنوا كقبان شري أي يمسكه على وترى محوصة مايا المهن ميوكوليا أصغو إهانة يومهينة أو شرفتي لغا حوبي أو لغا سيبي مسعيد كو آسا أيضا النوم وكفكيري شري قفك مركز وحوي وقبل الإسلام نبي مركز وحوي ما نبتلي يبو يدي قفك إذا هي سبحانه وتعالى هبل أوسيكو ابتليي وسوى نكسن ولما عامر بحديث كان نكون شاقو صوص صعبة كنا له سترا من النار عذابت أي وقد بنوني وقد بيانا ما وقد بنوني يانو ما بقى لي عذاب نكاس أنس بن مالك نوحي يلي من عال ابنتين وانك لبها بلوت كوريا أو ثلاثا أما صدح كوريا أما لبها بلوضي ولا ليهين سو كوريا أما صدح ولا ليهين سو كوريا حتى ينفصلن عنه إلا أنت كوينان أيان أي كتغيان أما أي كرمان أيان قال أنا وهو في الجنة كهاتين أني جاي ننكاسي جنة أساسا وضعان النبول أني جاي ننكاسي ننك لبها بلوضو دلي أما صدح بلوضو دلي وحين نمبر كاد دافسنا ده هاتينين أما لبها بلوضي ولا ليهين أما صدح بلوضي ولا ليهين وحين نمبر كاد دافسنا هاتينين وحول ننك أنت مسؤولية دودو قادة أنت كرمانين أما لك قرسنا وحول أني جاي تقول شنادة سيدا سن وذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث كالعقبة بن عامر وحيلي من كان له 3 بنات منك صدح حبلود إلى هاي السيد فصبر عليهن أنض القاطي وأطعمهن سوى نكسن أقودي وسقاهن سوى نكسن ورابيح أسي يعني ويه وكساهن سوى نكسن أرتري وأستري من جدته وحي وكسبضي له كنا له حجابا من النار يوم القيامة حجاب ونقونيان عذاب يوم القيامة حديث كان مركا وحي لك حديث كاس وحي الشيقية يا أحاديث تكلبا حديث كان أبي سعيد الخدري في سنن الترمذي والصحاح والألباني وحي من كان له 3 بنات أو 3 أخوات
أو ابنتان أو أختان wuxuu ninkii 3 hablood lahaa ama 3 hablood ay wala lahaayeen ama 2 hablood lahaa ama 2 hablood ay wala lahaayeen fa ahsanahunna suhbatan fa ahsana suhbatahunna si wanaagsan wuu la dhaqmay u fiirsada ragow si wanaagsan buu la dhaqmay inamada kamuu fadilin hablihii jaariyada kamuu dhigin inamadana dubjira kamuu dhigano sidii fiidmeerta meelaha soo meero oo maqaaxida ka soo sheekeeyo oo dabada turub iyo games ku soo ciyaara oo hadhow soo hoydo oo maryaha laydin meero oo qadaha laydin soo dhigo mu oranin wuxuu yiri fa ahsana suhbatahunna yani suhbadu waxa weeye waa saaxiibaka waa qof yani islamitihiin oo karo aad ikraamisid oo aad sharaftid halkan waxaa looga jeeda si wanaagsan u koriyey qaala wattaqa allaha fiihinna ilaahayna ka cabsaday ayaga aawadood ilaahay ayuu ka cabsado xaqoodii buu siiyo muu dulmin falahu aljanna qofkaasi jannada ayuu gelaya buuri nebigu sala allahu calayhi wasalam jannada ayuu gelaya nebigu sala allahu calayhi wasalam حديث كلا أنتو صحابة حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في مسند أحمد وصححه الألباني نبي صلى الله عليه وسلم وحي لمن كان له 3 بنات إنك صدح الدمر أبلاد لها يؤدبهن سوى ناكسا وأدبية يعني تربية سوى ناكسا أبرة ويرحمهن رحمتنا التصة أضيقيو إنان باتحي الشوديو hayla hadliniyo ragga meeshay joogaan ka fogo waa marka waa ragii maxaarimkeeda ahayd markuu nin hadlo adigu ma hadli kartiyo nawaa walaalkaaye hadalkiisa maqal muu oranin nebigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam yu'adibuhunna si wanaagsan buu adabta u baray haye wayarhamuhunna si wanaagsanna ugu naxariistay nebigu sallallahu alayhi wasallam markuu arko Faatima inantiisi radiyallahu anha oo soo socota intuu kaco sallallahu alayhi wasallam ayuu soo dhaweeyaa inantiisa halkaana wuu ka dhunkan jiray madaxa markaasuu fadhigiisa ayuu isfariisin jiray waa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ilaahayna wuxuu inagu yiri laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana xadiiskii nabiga inoo dhameeyo qala wa yarhamuhunna wa yakfuluhunna kafaaladoodan uu qaaday كفارة مركا وتعليمتودا وتربيتودا ونحريستودا وعنتدودا يقودستودا وأرتركودا وحتى إنو نين صالحة لدونه وأي دونيسو أما أكينو رأي جيدا قاتو ومن الكفالة وينينك وحا لغفلة إن أنتو مركي قادو قانقاد ay gaadho meel ay guur diyaar u tahay inuu caawiyo Umar ibn Khattab miya ka fadli badantii Soomaaliyeed ninka Soomaalidu ka khashaafaya inuu intuu masaajid tago u yiraahdo war inan saalihadan ahay nin saalixaya ii haya war Umar ibn Khattab inuu ka fadli badanna Umar ibn Khattab wuxuu yiri maalintay noqotay Xafsa diyaar guur ay u noqotay waxaan u tagay Uthman bin Affan waxaan ku dhahay Uthman inantaydii Xafsa wad garanaysaa aabuu yiri guur bay diyaar u tahay ma guursanaysaa wuu yara fakray wuxuu yiri jazaakallahu khayr maanta dumar diyaar uma yihi waan dhaafay Abu Bakar baan u tagay buu yiri Abu Bakar baan ku iri inantaydii Xafsa wad garanaysaa guur bay maanta diyaar u tahay ma guursanaysaa ويقع مصيبولي مركا أبو بكر رضي الله وانكحهم هذا بولي مركا عثمان بن عفان موقف رقني مو يستاقي قبل هذه مدون يقرأ ليه هو يقولي أبو بكر لكن ويقع مصي أنا كحهم هذا أي النبي صدون يقولي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ومركائي وحر عمره أرنت هذه إيش يكتب ويلي وحنكاقا مصي وحما قال إيقو أهيدان أوغا إنو النبي حضر هاي صلى الله عليه وسلم مركا وان سوغي سيرتي النبي إنا شيغانا وان ديدي إن أديك كلمة عدكو سيانا وان ديدي
waxaana sugayay nebigu inuu arrintan gelaya ama uu ka baxaya hadduu ka bixi lahaa waan soo doonan lahaa buuri inanta marka min wayakfiruhunna waxa ka mida kafaalada inuu kafaaladeeda qaado oo wayarxamuhunna ka mida inuu cid wanaagsan u doono uu asagu yidhaahdo inankaasaan ku haya aabbo waa inan saalixa waa inan taqiya waa inan masaajida waa inan diintiisa iyo khuliqiisa baan raalli ka ahay maxay kula tahay wuxuu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam qofka saddexdaa laga helo wajabat lahu aljanna albatta janno bilaa hadalo ninkaasi bislaystay buu yidhi waxa bisayl u ah uu dhammaystay ninka saddexdaa laga helo inuu adabta iyo akhlaaqda baro inuu u naxariisto inuu nolosheeda oo dhan u kafaaladeeda uu qaado saddexdaa ninka laga helo janno ayuu bislaystay oo diyaar u ah ninbaa markaa u hadlo wuxuu yidhi yaa rasuula allah fain kaanat ithnatayni hadday laba hablood yihiinna ka warran wuxuu yidhi wain kaanata ithnatayn xitaa hadday laba yihiin waa laga yeelay qaala fara'aa bacdu alqawm annahu low qaala waaxida dad waxay ismoodsiiyeen hadduu markaa nebigu odhan lahaa sala allahu calayhi wasallam hadduu qof odhan lahaa yaa rasuulallah midna ka warran taana wuu yeeli lahaa buu yidhi ayay ismoodsiiyeen buu yidhi dadku waanu yeeli lahaa sala allahu calayhi wasalam waayo waxuu ilaahay ku yidhi uu ka yidhi ninka wamaa arsalnaaka sala allahu calayhi wasalam ilaa raxmatan lilcaalamiin cibaad allah waxa hablaha saas u amray sidaasuu inanka inagu amray inamo fadliga hablaha la siiyey muu siinin nebigu muu odhanin sala allahu calayhi wasalam ninkii saddex inan dhala ama saddex inan ay walaala yihiin ama adeer u ah muu odhan nebigu hablaha ayuu fadligaa siiyey xaqiiqatan taa cidi kuma murmi karto yes waan idin sinaya oo waa ku doodi kartaan inay ilmo walba uu xaq leeyahay oo waabana lagu amray laakiin oo ilaahay baa yani ilaahay wuxuu nagu amray wa ahli anfusakum wa ahlikum naaran ilaahay wuxuu nagu dad tolkii naftiina iyo ahalkiina iyo caruurtiina naar ka badbaadiya wa'mur ahlaka bis-salaati wastabir calayha waa la yidhi ahalkaaga salaada ku amr u dul qaado laakiin fadligan jannada inay dumarku ay leeyihiin ama lagu gelayo ama waalidka sidaas sameeya uu janno bislaystay hablo ayuu nebigu sala allahu calayhi wasalam uu siiyey wax kale uu nebigu sala allahu calayhi wasalam uu sheegay wuxuu yidhi assaaci cala alarmala ninka u dadaala dumarka carmalka ah waa gabadh carmala ninka u dadaala assaaci cala alarmala waalmiskiin qofka labada u dadaala buu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu la mid yahay kalmujaahidu fii sabiili illah qof ilaahay u jihaad tegey wuu baxay naftiisii buu u huraya xoolihiisii buu u huraya wuxuu filayaa inaanu soo noqonin qofkaas wuxuu la mid yahay ka qofka gabadha armalka ah ee carmalka iyo miskiinka qaada kafaaradooda أو كالقائم الذي لا يفطر أو كالصائم الذي لا يفطر أما وحل أجري هي قف قيام الليل تكدو أن سنن أما الصوم تصوم أو أن تبنين عقلي ما قال كرتو قف صوم أو أن صوم تبنين يقوم قف قيام الليل أن لين وأن كهرين أو كنا سنن ما jiro wuxuu uga jeedaa ay shabah al-istixaal waxaynu u baahan marba intay iskaashadaan ay koriyaan hablo ay soo saaraan saalixaat qaanitaat ah xaafidaat lilghayb ah dumar marwooyin ah hablo marwooyin ah hablo ilaahay ka cabsanaya inay soo saaraan waxaa laakiin maanta jira waxaana laga yaabaa waa meelahay dumarku markay aan ka hadlo ay way giirka iska kiciyaan
ay sunnayaasha isdhaafiyaan ay shaashadda huruufaan waxaa laga yaabaa maanta dumarku inay hiigsanayaan inay rag la baratamaan waxaana idinku ballan qaadayaa ilaahay karaamad buu idin siiyey mowqif fadligiisa meel si kale aan lagu gaadhaynin wuu idin gaadhsiiyey ina maanta rag la baratantaan haddii aad taa maanta dhexda u xidhataan idinkaaba mowqifkii ilaahay idin joojiye ka soo degay waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala inaa kulla shayin khalaqnaahu buu biqadar wax walba qadar buu sameeyey meel buu dhigay ilaahay subxaanahu wa tacaala wax walba wuu hagaajiyey qofkii markaa ka soo dega ninkii meesha gabadha isdhiga ama gabadhii meesha ninka isdhigta deetii ilaahay ugu talagalay iimaankeena inuu inoo sheegayo ayay ka baydheen dumar baa markaa jira maanta moodaya inay raganimo ay tahay ama shakhsiyad ay tahay inay wax walba u dagaalantay xagxagato waxay ilowday dadkay ku dayanaysaa waa dad meel kale u heriyeysan waa dad jidkii ilaahay uu jideeyey ka sii baydhay waa dad meel kale u socda fiirsada markii u fiirsada dadkan la yidhaahdo corsaydiska ama la yidhaahdo xuruub asaliibiya marka dadka inala ay dagaal inagu soo qaadeen waynu jebinay oo waynu jebinay taariikh alislaam bal akhrista waynu jebinay oo waynu iska celinay xuduudkii way soo dhaafi kari waayeen mujaahidiintii inay ku fidaan mooyaane way ku soo fidi kari waayeen way isweydiiyeen su'aal markaa war dadkan waxaani wax laga yaabee dadkan xaggee bay ka soo dhaansadaan way fakireen oo way baadheen buxuud bay ku sameeyeen waxay soo ogaadeen meesha ilmahan la dagaalamaya ninkan inankan mujaahidka ee hor u dhimanaya ilaahay dartii inay ka soo dhaansadeen hooyooyin saalixaad ah hooyooyin inay ka soo dhaansadeen yani raganimo caqiidad taqwo iyo cibaado zuhud iyo makhaafad ilaahay laga baqayo waxay ka soo dhaansadeen hooyooyinkii qofka ilmaha dhisi kara ee ilmaha xaqiiqatan sidaa ilaahay u sameeyey ugu talagalay jidka saari kara waa hooyada ee aabbaha maaha maxaa ii markhaatiya waxay ii markhaatiya culamaa islaam taariikhdooda eeg waxaad arkaysaa imaam maalik marka isagoo ilmo yaro hooyadii baa gacanta qabatay war kac bay tidhi nacsiha kac idhab ilaa rabiicati ra imaam alxaram annabawi la fadhiiso rabiicati ra'yi baa la yidhaahdaa ag fadhiiso intay khamiis u soo xidhay cumaamadii u soo xidhay sheekh yaroo malaasana intay ka soo dhigtay maaha mid yaroo suwaa gaaban intay u soo xidhay kaba yaroo naykina u soo xidhay koofiyadina uu dhinac u jeediyey in aad moodid intay vaasiliin ka soo buuxisay in mid yaroo naanaabo oo dhinacu marmaraya may ka soo dhigin sheekh yar bay u soo ekeysay caalim yar bay u soo ekeysiisay waxay tihi waar kac bay tihi اذهب إلى ربيعة الرأي ننك ربيعة الرأي لصو فريس عالم الإمام مكة إمام حرم المدني عفوا حرم المدني لصو فريستري مركاسي ولصو دردارن قال خذ من أدبه قبل أن تأخذ من علمه وحد صبرت أدبتي سي أخلاق لي صبر وكسو قاضو انت نتكسو دانسان علمي جيسا حقيقة كنت أول ملاينسا حكمة كنتي عقلي كنتي أم السليم أم أنس
وما أنس مركي مدينة والنبي ويمي المهدي يرى أنس بيك حايسة وأبيه قابو نغضي وحكود انت الشام باليري وكبح المدينة إنه إسلام ودي لي المهي يرى بيك عنت سوقبته هو إن كان بيت يا رسول الله بيتي كان يرسل ما درجة أصاب مري أن سوق قرحية أن أصاب سبجية أن أصاب يعني على رسول مريه إلى يعني برسول إلى رسولك إلهي هكو خدمة دينتنا هكابرتو وندعي ودعي مركا النبي صلى الله عليه وسلم إلهي علمي جيسا بدي وعمري جيسا وديري وحوله جيسا وبدي وتفيرتي جيسا وبدي انت بإلهي وكأخبر أبو أنس ميه لما يقانو أنس أيها الكادكتي المها مالك أيها المها وكانت أحمد إمام أحمد عفوا شافعي انت أحمد لو قلن كبر باهدي الميرو كبر قريشية ده وإمام الشافعي أبيه دنتبه سو قادت أيضا برتي سو كوريستي ميجا أدر سو أفعر بيتك صبروا أفعر بيتك يا قبيقة يا نحو عربي صبر أنت أنا علمي أنا برانين إمام محمد بن حنبل هو يدي بسو كوريستي إمام البخاري هو يدي إمام سفيان هو يدي إمام ابن تيمية حتى أيدي بالله ما قعدره هو حنوجد شيء ده صليبيين تيضك إسلام كبل الدجال لما يمرك أركان عدة والمهن كسر لانصانيو الشحنة إيمانية الشجاعة أباها ما هي وهو يد مرك أوجادين وفكروا حلالين عن كيبين الضبا هو يده وقدرنا هو بلا فائدة وقواسو مانتا تضبطن أو مسلمات أو دمر مسلمات أو إلهي كرامي ديو شرفي أيا وحي هل وسد بكل عربي هل وسد عربي ده وحنا هذا قف مركو هي هابو ونبني ما أي كل عضو ووجه وريره وحن إسكج حداقه وحكل عده هل وسد لي ده هذا الرجال لا برتما رجال هو مال بحبو كافض لا ميلي جابو كيدي رجال لا برتما يسيد النساء للشقائق الرجال وولاتهم وسمنتهم إلهي وقال المسلمين والمسلمات مسلمين تي مسلمات مؤمنين تي مؤمنات قانتين تي قانتات واسكمت بيننا إلهي باكل إن أكرمكم عند الله أتقاكم نبي باكل إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكم وأشكالكم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ماشي برة المجري ماشي وحلو برة تمام ورواجب كي إلى هاي الفري نم يجبر بقى النقطة ما كسر بحكرة جبر المسلمات ده مانت وهالجمي كرتا ومضى وجبر ميحي لقف جرتي فهمتي وحي لقف لي اللي قد دوني موقف كي اللي قد دوني تستاي كرتا وهي تمام مؤمنة ده مركا اللي يدي مركا دو مركا هلا دريالو وحنو إيمانا يا مركا رق قلودو نعسنمو أي قاضي وتي إلهي سبحانه وتعالى كبيري وأيقو لبن نوع دمر كان أيقو وقباقيا معصية ده ودوني إني لغان ميل إلهي آنو راليك أهين نبي نوح صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بإمرأة إلا كان الشيطان ثالثهما نين يقبل من قول اسمي تاغن إلا وشيطان كيس الدحاد وياهي رقبا أشيرا مركا أولاً حرية بريدن كو يريا وحاني إيدن كو يريا هدي أنا هاي نين وحاني إيدن كو يريا رقبا بريدن كو حرينيا إيدن كيبا إيدن بربر تاغن هاي وإلاوي إني تهاي حرية بينا واللوغو هضاقيا واللوغو باقي ما أكتهين دمرو wadamada xurriyadda isku sheega Mareykan oo kale boqolkiiba 80 dumarkoodu waa sexually harassed wala abuse garay yani wala farax xumay boqolkiiba 80 maanta waxaan akhriyay ihsaa'iyat lagu sameeyay soo lama oran dumarka hala dhex galo dumarka rag waxay dhex galaan
لما أورانين رجع دمر كوا إسكمل لما أورانين رجع دمر هلا برتمان أيجي بقول دمر كي بقول بقول كي بقول يسدتن أي دمر كلا فرح مايا كورما رجع كوالله بدونية إن الدمر كان أي سدا إسكجر لوقان أي إسكجر سدا إسكجر فتالان أو سدا إسكجر رحيستان أو قار برتن إسكتلجا أو قار كوش قيستان أو قار كان إسكو قرحية تاير بالله حيسيني هو تاير قاري قال لجوا قبر بال أنت لسوق أو يلاق دقيقة قلم بالله حيسيني مد بالسوق أو يلو ديبيا تليفون بالله حيسيني مد بمريها لقى دقيقة لو ديبيا وايو دمر كي وحي كسو صارن سلعة wax lagu xayeysiyo alaabta lagu iibiyo karaamadeedii bay ka siibeen sharafteedii bay ka siibeen quruxdeedii ilaahay siibay ka siibeen xishmadeedii iyo xishoodkii bay ka siibeen waxay ku shaqaysanayaan waa ragga iyo qaar qudhooda nacasnimo ay xun si xun u qaaday oo dumarkii yasaya kuwaasna qudhoodu waa alif iyo ba waa a iyo b qaar hablohii intay aflaam ka soo duubaan ama video ka soo duubaan inantuu la shahadlayay ama inan miskiinada oo laga yaaba miska ayadana iska ah yani cala alfitra oo ragga aanay ogeyn inay ku jiraan qaar masasoo abeesooyin wadmadmadoobi inan iskala hadashay inuu asaguna sawirtay hadhana uu sawirkii intuu madaxiisa soo qaatay sawir qaawan dhakada u ka saaray oo magaalada uu geliyay heblaaya ila soo hadasho caynkaas heblaaya inta qaybta jidkeedii iga tustay heblaaya sidaa igu tiri كواسن وجرا يقار دون إن الدمر كعداديان لبضابا إسلام كوديد حنقول لا هي الدمر كهلا دريالو والدمر كهلا احترامه قبل هذا كل شيء وهو يدا شندنا وعرفتنا قبل هذه قبتد وحاسكاجي ولا تنسوا الفضل بينكم بالليلي وتدوق المونسي وتمريها عاد أوديغتي كوديغتي وتي ونبي ويري نصف الدين تادي نصف يكون وحسن قبل هذا إن أنت هذا تهاي واتن النبي وكوش شيء إن أنت هذا ولا شاذبا واتن النبي وكوش شيء كيري وحجاب كان سترا وحيوتي سترا من النار jannadana waa ku tigirkaaga ayadaaba jannada ku daadahaynayso gacanta ku qabanaysa waa ragow dumar hal daryeelo oo hal karaamadeeyo oo hal sharfo oo hal cizeeyo oo nabigu sallallahu alayhi wa sallam uu inna baray sideen dumar u dhaqano wuxuu nagu yiri khayrukum li ahli wa ana khayrukum li ahli wa ragina idinku khayrka badan idinku fadliga badani wuxuu yiri waa ragga dumarkood iyo reerkooda ugu wanaagsan anana reerkayga ugu wanaagsan buu nabigu sallallahu alayhi wasallam wa nabigu sallallahu alayhi wasallam asagoo sakaratil maut ka saaran ayaa wuxuu inagu yiri allah waxaan idinku dardaarmaya salaada iyo dumarka wama malakat aymanukum war dumarka idinku dardaarmaya nafti ba ka sii baxaysa sallallahu alayhi wasallam nafti anfaaskiisii baa nafti baa uu dhiibaya haddana wuxuu inagula sii dardaarmay war dumar yowma carafa ayuu istaagay nebigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi istawsuu binnisaa'i khayra war dumar ha la daryeelo war dumar ha la daryeelo war waxa idin hoos joogaan buuri oo xalaashateen oo ku xalaashateen kelimad ilaahay buu idinku xalaaleeyay yani dumarka waxa loogu galmoonayo ayagu idinku galmoonayaan waa kelimada laydinku siiyay laydinku meheriyey war hal karaamadeeyo dumarka والله يعني إلهي وحده وليس الذكر كالأنثى مرمر الرجل يدمركم أي دمركم فضل بديه إن بدم يدمركم فضل بديه وايو وفك إلهي وحده فضل بدن والرجل دمر حلا دريال كاسنة قبل موقف كي وإلهي ينبغي سدقي أي نبغينا قبل إن الشقارة كده تدمها إن يكون شقي يسمى خدامات إن قبل يكون نقطه وتكفي شد
inay guriga ku nadiifiso oo haddana carruurta ku koriso oo haddana noqoto mawduca shahwadaadii meeshii aad ugu tegaysa ay noqoto oo adiguna meelaha ka soo tarto inta tow ka soo tirahdid maqaaxyada fadhi ku dirarka aad siyaasad iyo meelaha ka soo bowbowlaysay haddana guriga ay soo xaadirisid sidii aad tahay malag yaroo soo caariday ma hataa sida maaha nebigu caaisha maxay ku tiri kaana fi khidmati ahlihi khidmati ahli yani nebigu sala allahu alayhi wasalam asaga dumarka u halgami jiray asaga ayaa dumarka la shaqayn jiray waa xaqiiqatan waynu aaminsannahay inaa shaqadii la kala qaybsado haddii aanay gabadhu shaqaynaynin uu ninku asagu maalintii dee reerka uu u soo dhicinayo quudkooda dee waa sax inay shaqadii guriga iyo tarbiyaddii ay ku dhacdo inteeda weyne ayada waa laga yaabaa laakiin markaad guriga timaadid intaad lug saartid galashaha oo dheera aad dalbatid remote tvgana aad qaadatid maxay CNN iyo BBC ay tiraahdid hada ma anzala allahu biha min sultaan waa ragoo dumar hala daryeelo oo yaan laga dhiganin addoomo oo unha loo naxariiso gabadhani waa caatifad kelimati raxma ayay kaa sugaysaa waan ku jecelay bay kaa sugaysaa hadiyad yar bay kaa sugaysaa waan rag waan tusayaayo ubax yaroo wanaagsan bay kaa sugaysaa ubax eega ragoo u fiirsada ubax yaroo qurux badan ayay kaa sugaysaa inaad ku tiraahdid waan ku jecelay oo waan ku darsaday oo waan ku dhimanaya oo xawaanta waan kaa fakirayay way kaa sugaysaa inaad fasax geysid oo ayada aad u soo raaxaysid way kaa sugaysaa waa ragoo dumar hala daryeelo waxay kaa sugaysaa inaad u hiilisid haddii la dulmay oo meelo kale laga dulmay oo ay xaq aydu ku taagantahay u hiili oo u hadal waxay kaa sugaysaa inaad kelimadda wanaagsan aad maqashiisid waa ragoo dumar hala daryeelo sida loo daryeelo waxaa ka mida inta gacanta la qabto la yidhaahdo xabiibtiyay walaashayay waxaynu saarannahay dhaan baynu nahay jannadii baynu u halgamayna ayaynu u heeraysanahay ina mari oo waxaa lagaa filayaa inaad qiyaama leyl u kicisid nebigu sala allahu alayhi wasalam wuxuu yidhi raxima allahu imra'an ama nin labadaba raxima allahu rajulan ilaahay ha u naxariista buu ihi nin habeenkii kaco qiyaama leyl tukaday ka bacdina markuu qiyaama leyl dhammaystay xaaskiisii kiciyey walaalay ila tuko ina mari jannadii baynu u baratamaynaa waxaynu doonaynaa inaynu darajaat alculaa aynu gaadhno waxaynu heegsanaynaa alfirdows alaclaa kac ila tuko qiyaama leyl hadday diidana qaala nataxa fii wajhiha maa biyo wanaagsan buu ku rushaynaya biyo yaroo qabow oo raxmada ayuu ku rushaynaya waa ragow dumar ha loo halgamo waxaan idin leeyahay ragow dumarku maanta ilaahay subxaanahu wa tacaala mowqif uu joojiyey qaar fara badani ay inoo baahan yihiin abyuuska ha laga daayo rag fara badan baa intuu tan guursado oo 5 iyo 7 in ka dhalo ayuu ka cararaya markaasuu inan yar oo dhex yar oo qurux badan oo xabiibtii uu yidhaahdo ayuu soo xaraysanaya 7dii bartan kaga tegey iyo baahidoodii iyo hooyadii la kacaa ku faysayna wuu ilaawaya waxay mufassiriintu yidhaahdaan suurat almujaadala qad samica allahu alatii tujaadiluka fii zawjiha watashtakii ila allah wallahu yasmacu taxaawu waxaa la yidhi waxay ku soo degtay khawla bintu thaclaba waxay tidhi yaa rasuula allah markay calooshii ay ballaaratay jidhkii uu wada dibcay yani marka cid kaloo ay qaadanaysaa ma jirto marka way isa sheegtay bay tidhi ayuu ninkayga igu yidhi inta calaya ka dahri ummi
dihaar buu iga qaatay xaaraan baad iga tahay buu yidhi carruur baan u hayaa bay tiri yaa rasuul allah in taraktahum haddaan uga tago daacuu way lumeen وإن ضممتهم هدان سو كحايستنا جاعوا way gaajoodeen maxaan sameeyaa warragow sidaa ha noqonina warragow dumar ha la daryeelo hana noqonina kuwa intay inan yar ka haystaan inan yar guursadaan inan yar oo isa soo ilaalisay oo ragoo dhan tiri macaad allah ilaahay baan ka baqaya oo ayadoo xishood iyo xishmad iyo xayaa ula timi oo uu guursaday hadhoona markay tii kala hinaasto tuuray waa ragoo haltaana hala daayo waa dulmiye oo ha laga fogaado oo dumarka hala daryeelo haddii aanay raganimo kugu jirin oo aanad mas-uuliyadda qaadi karaynin tanna ha luminin tanna ha baabi'inin ee ka joog rago waxaan leeyahay dumar ha la daryeelo oo nafaqada gabadhu waxay u baahan tahay ina la eego inay aragto inaad jeceshahay jacaylkuna wuxuu noqdaa dhowr nooc kelmad buu noqdaa khidmad buu noqdaa taabashuu ay noqotaa mee waxay noqotaa hadiyad bay noqotaa yani gabadhii nebiga fi xadiis saxiix albukhaariy wasunan tirmi hadalkana waynu ku daray wasoo gunaanayda doonaaya waxay tidhi ninkaygu idaa akala hadduu cuno miiska waxa yaalla wuu cunaa war ma dibiba hadduu cabbana wax walba wuu fuudsadaa war ma dameerba markuu seexdana intuu istuduubabuu sii jeediyaa gacanta ima soo fidiyo oo meeshay xanuunaysa ma taabto ay tiri ayuu nebigu sheegay xadiidka gabadhaas gabadhu waxay u baahan tahay markaad guriga timaadid inaad tidhaahdid sulaykha dhex yaray qurux badanay hodan caddayay tii aan u dhimanayay tii aan u ilmeeyey tii aan ka seexan kari waayey xabiibtiyay bal maanta ii war ag fadhiiso u sheekee ha kuu sheekayso basal baan jarjaray bariis baan kariyey carruurtii baa isu kaadiday waan ka nadiifiyey ka gor warragoo dumar ha la daryeelaan idin leeyahay ruuxan dumarki ilaahay wuxuu ugu talagalay inay ka hadal badan yihiin ragga yani culammada qaar ba ku tilmaama ninku iyo gabadhu 9,000 oo kalmood bay ninka dheertay maalin walba 9,000 oo kalmood ugu yar 9,000 oo kalmood ba ka guuxaya inay sheekaysay bay doonaysaa inay la hadashaa bay doonaysaa haddii aad ka neefin weydid ee way soo ghiiba iyo namiima ay ka soo sheekeen heblaayaa la furay heblaayaa la guursaday heblaayaa soo iibsay saxanka heblaayaa miiskan soo iibsatay heblaayaa caynkaasa heblaayaa tiri ayay ku dhammayn doontaa 9,000 haddii kale aday ku sheekeen ragow dumar ha la daryeelo ayaan idinku soo gunaanadaya ilaahayna hay naga dhigo hadalku wuu badan yahay in badanna waan hayaa haddaan hadlana hadalku ma dhammaanayo warragow waxaan idin leeyahay dumar ha la daryeelo dumarona waxaan idin leeyahay ilaahay ka cabsada oo diinta u halgama haddii aad luntaan waanu lunnay waayo nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam in awala aw fitna kanat fitnati bani israa'iila fi nnisaa fitnadii bani israa'iil dumar bay ka bilaabantay buu yidhi nebigu hadday dumarku marwooyin ay yihiin oo is ilaaliyaan oo is xishmadeeyaan wallahi zina ma jirayso macsiyadi ma jirayso dembi aan suuq ma jirayso tabarruj ma jirayo ayadii marka waan idin baahanay dumaro waxaanu idinku baahanay sida idinku hawada ugu baahan tihiin waxayan raggu dumar maanta ugu baahan yihiin siday dhirtu ay ceedda ugu baahan tahay waxaanu idinku baahannahay sida biyaha loogu baahdo waayo haddii idinku ilaahay ka cabsataan annaguna ilaah waanu ka cabsanaynaa oo ma jirayo macsiyad iyo xasaawo beena iyo sawir la isu dura iyo dumar dhaqaaqaawan iyo ma jiraya idinkuna tiina ka soo baxa ragguna waxa leeyahay raggow dumar daryeela ilaahayna ha idin barakeeyo jazaakum allahu khayr على حسن استماعكم وأسأل الله أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه
وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا شيخ سعيد راجع جزاك الله خيرا. وقتك قيمها بدن إذا لقى سعاوة نقول رجينا إن مواضيع بدن إيو 10 بدن خصوصا قويسك نقول حل دونتو. شيخ سعيد هدي وقتك مقدشة إيو تورنتو وكلا دوانته هذا حلقة صلاة يسمكوس ودوين دور سؤال أنا نقول رحنا إنا كويدينو موضوع عاو كسابسن dadka ku jira zoomka faraha badan ee ku daawanayana inaan dhowr qof siina hadii aad noo ogolaato. bismillah insha Allah waqti waan haystaa. waa maasantahay ilaahay ku barakeeyo mar kale. su'aasheena koowaad anaga ka guriga samaahan dumar caawa laga hadlayay sidii loo daryeeli lahaa ma isleenahay dhibaatooyinka ugu wacan dumarku iyaga sabab isugu ah oo marka horeba waxyaabaha dhalanteedka ay raggu u sheegayaan qaar oo ay ku soo xeregelinayaan kadibna halista badan kaga imaanaya dumarka sabab u ah oo waxyaabahaas inay marka horeba ayagu lagu sameeyo dhibaatadaas ayaga marka ugu horeysaba ragga la raaca oo dhibka ayagoon dareemaynin sida ayuu ugu dhacaa oo waxa loo baahan yahay misleedahay dumarku inay ayagu daryeelka iska bilaabaan marka hore. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم. رجع يضمر كدم بيجي ويود الليهن عيد قرا لما حنبارك كرو أو لما صاري كرو دم بيجي. لكن وحين كفنا إنه رجع مركه هراء إن قدوا أي سوى نفسنا قمن قد رقمان الضمر كولا رقمان. كبعد وحين كفنا إنه ضمر إن أيجونا إلهي كعب صدان. وفير صدى إلهي سبحانه وتعالى مركو كهد لي آية محي السرقة آية كهد لي ستوق لماذا رقوه الرئيسي وهي نينك وحا لوغا دغه مسؤولية دو إنو قاضو قودك مركي آية تيمي آية الزنا وحا له الرئيسي دمر وهي دمركو حد يقور دبنك حدي آني بهن رقوه ويكاقاب صدان مركا وحنو لاني دمرو dembiga inkastoo la wada leeyahay dumarku markay ayagu ay isa soo bandhigaan dad badan oo rag badan ba ku dhacaya tusaalanku idin tusaya oo ala sabiil المثال hadduu maanta ninku isa soo qurxiyo khamiiska ugu quruxda badan ugu qaalisan cadarka ugu goon ee ugu qaalisan isa soo mariyo oo halka 100 dumar soo dhexmaro laga yaabo inaanu cidna fitnaynin laakiin gabadhu haddii maanta isa soo qurxiso ay soo dhexmarto rag ka 15 jirka ah iyo ka 9 jirka ah way fitnaynaysaa waayo dumarku waa ziinad qurux badan oo socoto oo raggu ay had iyo goor xaggooda u soo leexdaan زين للناس حب الشهوات من النساء اللي بلابا marka dumarku qayb way ku leeyihiin oo way qaataan raguna way leeyihiin course baan dhigaya oo ku saabsan guurka course-ka mushkilad qurayga haysata waxaanu course-ka ugu tala galay inuu noqdo course sharciyan iyo cilmiyan labadaba xambaarsan course-kaas wuxuu ka hadlayaa 4 qaybood qayb loogu tala rag gacanka 4 group rag iyo dumar way noqon karaan laakiin 4 midna guntooda lama gaari karo illa mid laga helo rag iyo dumar oo taasoo intaan la isguursanin runta la isu sheego oo aan dhalateed iyo been iyo makeup iyo in cankan baan hayo hebel baan hayo inta laga daayo oo saraaxad lagu wada noolaado marka anugu waan kugu raacsanay in dumarku ay qayb ku leeyihiin dembiga laakiin kuguma raacsanay in dembiga oo dhan wada leeyihiin ee dembiga wayna wada qaybsanay ee nin walba mas'uuliyadiisa ha ka soo baxo wallahu a'la wa a'lam naam ma santahay aan siiyo asxaabta ku jirta oo caawa dumar u badan hidaayo maxamed cali haddii aad maqli karto soo dhawow anagoo soo koobayna sheekha waqtiga si aan jaanis fiican u siino
u diyaarsado cashiro kale iyo barnaamijyo kale uu leeyahay hidaayo haddii aad maqli karto soo dhawow wax su'aal haddii aad qabto taadka dhammaantii khadka sheekhan khadku go'go'aya hidaayo khadka ka yara hulaysan aan siina markaan gabadha kale xigta deeqo ditorayso hana duqow soo dhawow aan siiya markaan marwa zaynab soo dhawow السلام عليكم. عليكم السلام. ugu horeyn bahda guryo samo iyo sheekaba aad baa idin salaamayaa marka xigta su-aal ma wata laakiin waxaan aad ugu mahadcelinayaa sheekh Saciid Raage waqtigiisa qaaliga iyo mowduucan sida uu noogu faa'iideeyey iyo sida uu garabka noo siiyo dumar mar walba maaragta maxaadarooyinkiisa aan maaragta baraha bulshada kala socono midda kale sheekha waxaan ka codsan lahaa haddii oo ay u suurtagelayso in kulamadan oo kaleeto iyo maxaadarooyinkan uu noo badiyo horta waan kaa qaaday salaanta ilaahayna subxaana watacaala ha ka abaalmariyo jazaaka allah khayr aadna waan ugu soo dadaalayaa inaan idinka soo qayb qaato koronadan oo kale biidnihi subxaanahu watacaala inamadan maanta insha allah tabaaraka allah maanta isoo xidhay iyo qaar lamidaba biidnihi subxaanahu watacaala waan ka qayb qaadanaya walaalo aad baan uga mahadcelinaya jazaaka allah khayr waa mahadsantahay sheekh Saciid sida qiimaha badan ee aad u qancisay gabadhaas marwada ah waliba oo xiisaysa casharadaada iyo kuwa badan oo iyadoo kala ah hodan xuseen cabdi aan siiya markaan maadaama caaw dumar laga hadlayay soo dhawow hodan haddii aad maqli karto السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. تمام وإذن سلامي ولا له شيقنا هذا وسلامة يا أنا مهتسين يا شيق ما شاء الله حفظنا كفايدني إن هل سؤال عن قباء سؤال شن ودينا أنا شيق وحواي إن احترام كدمر قوسس كسامن مكوية لن كران أو ولا شيء قبله كله أو فميلة ذا أنت يريري هنا كله ولا شيء إلا لو تربيه قبلها سيدا احترامي لهاي نوكله بسم الله والصلاة والسلام على رسوله الكريم إن الله براء إن مدو إن احتراما هبلها والله قبل مارمان إن هبلها الله براء إن مدو احتراما والله قبل مارمان ميزان كل لبس صعب وليه لبدا صعب هدي أن لسوى نكسون لو ميزامين متبع دعية هوس دعية وحنو بهنا إن نعرورتنا برا إن الله احترامه قفك كلوحي هيبة أما نين هالنقضة أما ناك هالنقضة أما قبر هالنقضة أما ويل هالنقضة أما عدة لكن احترام هو ضروري وحنو بهنا إن نفهمنا حقوق بين كلنا حق بعد يقول هذا ولا شيء ده حد لسه أن حق بانك يقول ليه وحلا يقفل يا يوم القيامة إن حقاقي أن كوسو قد بيو كيجينا نديسو قد بسيط وحنا اللي يقدون يا يوم القيامة هدي أنا أنوجو كعب صدي وحقاقي أن كوسين وين كيجي السيسيت ويا إلهي يوم القيامة يويدين ما يوهب لا يمحي حقاقي دي كوسين ويدين يا محل أدوجو حقاقي دي السين ويد عرورتين إنه مكة يريدين وإن الله برا إن احترامان حبلي الضمر با احترام كاسنا كمي مادو هذا اللوجو شيء أو قرة يوحو كي مادة فعل هذا إن كتر هذه ولا شيء احترام هذا أدوكنا إن أنت احترامي ويدين أو أدي يستد أما علمه تستد إنه أسوق وحيابة فربضن أن لقفلين لكن أيدا وحول بل لقفليه وان قرنيا أنوغو ولا شيء يجي وينيد لبس سندات أو قرة مركز نستو كوريني وحلقة في لي إن صباح دي كعدة أيضا أو أي جرجرها شدة أو قوش أي حاجات دياريسو داوها أي دياريسو
oo quraacda samayso oo shaha sii kariso oo hadhow annakana intaan markaanu soo kacno aanu wejiga weliba iyadoo noo fool dhaqdo oo quraacdii nala siiyo 2 sano way ga weynta ixtiraam wala tirahdid lagu yiraahdo ilmaha walaasha ixtiraam waqtiga qudhiisina uu arkayo caynka shaqada ayada loo dirayo iyo sida ayada mas'uuliyadda loo saarayo iyo sina asaga waxba loo saaraynin ilmahaas ixtiraamka ma baranayo qaybta inanta qofka in walaashi marka waxaan leeyahay inanku waa inuu bartaa sida mas'uuliyadda inanta laga sugayo mid leegin asagana uu xambaarsan yahay waa inay labaduba bartaan waa nabiga baa kula Aisha kule kana fi khidmati ahli nabigu sallallahu alayhi wasallam muhayn asaga reerka u shaqeyn jiray marka ilmahan yar haddii aanad barin sidoo walaashi u caawiyo oo iyada wax la qabto ma ixtiraamayo caruurtuna carabka kuma bartaane ishay wax ku bartaan yani dhegtay ka maqleen waxba kama bartaan waxay wax ku bartaan ishay wax ku bartaan isha arkayaan waalidkuna marka waa inuu tusaa wallahu a'lam wa a'lam naam وما سنتها خبير عبد الله سودو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ السلام يا ما شاء الله. waxaan rabnaa waxaan baliyo guriga samo oo si fiican shuyuukhda aad uga faa'iideysano عبد خبير waxaad moodaa in meelna live ah ka daawanayso meelna zoomka uga jirto laba cod isku dhacaya marka hadii aad kala ilaali karto hadda waa ka fogaaday aad baan ku hambalyeynaya sheekh raagana waa salaamaya assalaamu alaykum intaas ku soo koobiya وعليكم السلام ورحمة الله وما سنتها همبليو iyo bogaadin iyo sheekh Salaantay waa kaaga mahad celinayna dadka su'aalaha qabaan jaanis ka siinayna anagu kala ma naqaano haddii aadna qabin hambaliyada ansiyo markaan haddii ay maqli karto asma soo dhawow الو اسمع وندو على السلام ونمحل هريزع marka hore waa u mahadcelinaa sheekh Saciid Raage iyo muassasadan Uliya Samo sheekh waxaan weydiinayaa hal su'aal oo ah qof doonaya inuu guursado sheekh oo gabadh ah waxa ugu fiican ee ninka marka diinta iyo dabeecadda laga tago waxyaabaha aan hadhowto ay ka baqaso inay dee magaranaysa aanay saameyn ku yeelin gurigeeda wanaagsaneen rabto inay iska sii eegto maxaad kula talin sheekh aadna waa u mahadsan tahay shakhsiyaadku sida culimadu ku tilmaamaanba waa 4 waa shakhsiyad ay yiraahdaan gaaladu markay sheegayaan waa explorer يعني قف كاسي واش شخصية حاول إسكاه هابطو ما شاء الله وحبا أنا بادر قرينينو وحين أنا وا إسكيرا هبي قف كاسي وشخصية اللباد شخصية ديكتاتورة وأورنا يسيدة يدو ما صعوتا سيكلا ما صعوتا وشخصية الصدحات وشخصية اللي هذا أي قالوا يقولون هو بيلدر وشخصية سيستمية النظام كصعوتا شخصية أفراد ومدى إلى هذان وحوية وفلاسفة أما هو politician أما هو قف تعال إنه حاجاتيه أفرتها شخصيات بلغت الماما قف جورسن السيد وين أوجاتها شخصية ده وياهي أديقنا هذا وين تصيبرتها مركب وجوه الرئيسة شخصية ده وجوه الرئيسة شخصية لم يدوي جورسن كرتها شخصية اللبادة ديكتاتور إذا قفك الديكتاتور كنا اسمه مد لم يدم جورسن كرو حب جورسن كرا شخصية كلا أو قف سكن مسكينة أفرت الشخصية ضد إن كاكرا دادية مدونيو وإن أذكر أوجاتا وحي كليهين أدوغونا تيقو ما كوجشة أدمركا دونتا دوشة وحل جودة يهي ضد صالحين ولا وذا قروح بدين تان ليس جودة قليل وأن ليسوا إيمانين وأن ليس كورسنين حدو مركا ليس كورسدو أي صوضة بحيان شخصيات
عمر بن الخطاب قبل باوتي ما حكيت يا أمير المؤمنين وحي صوت دوني الزبير بن العوام حي كلته قال أنعم به الرجل وان وناكسن ويدوا صحابي ومن 10 مبشرين وإن النبي هبر وداقي حال قدي هقرسن بولي لكن وايد دمرك وما تتلع سنة waxaan ku leeyahay marka qofkaad guursanaysid waa inaad si wanaagsan aad u baadhaa shakhsiyadiisa akhlaaqdiisa qura maaha diintiisa qura maaha shakhsiyadiisa kayaankiisa muxuu yahay Zubair bin Awam ahl janna weeye ومن 10 مبشرين بالجنة وان مجاهدة وحواري هذه الأمة مع ذلك دمرك أمو وناكسني ما ليلة هذا مركب مؤرخين دمرك اسكنوا وناكسني ويقعد أذكار marka waxaan ku leeyahay walaalo qofkan waa inaad ku samaysaa taxriir iyo taxqiiq iyo tasxiif kaamila intaanad soo xareysanin amaana ku soo xareysanin sidana waxay noqonaysaa inaad baratid ciddu la nool yahay iyo cidda la nool caynku ula macaamilo dumarka la nool dumarka waxaan uga jeedaa hadduu qaar qabo hadduu qaar dhalay haddii hooyadii joogto haddii habaryarihii joogaan haddii walaalihii joogaan soo warayso kuwa markaasumaad ka dabaalan karta wallahu aclam wa aclam وما سيا شيخ سعيد وحان كعسلنا أصحابته إن موضوع عاون كهالنا دمر كسيد الله درياله أي سؤاله أنت بدن خصيان هدي أي سؤاله نكلا تكتجان هذا حكمين موضوع يعني وقت كان يسا شيخنا وحان وما هالعلنا سيد وتحق لي جوداس ولا شينا ولما جوابها جودا أوصينا ووصل موضوع عاون كهالنا دريال كدمر أنسيو عبد الله محمود هدي ومغلي كرو عبد الله وما سنيا هاي بوقا كدبيرة يا فربدن أنسيو مركان آدم عبد القادر عبد الرحمن هدي هذه مغلي كرو تسودو آدم ألو آدم عبد القادر أنكسر عنه عبد الفتاح طاهر فارح سودو عبد الفتاح الو عبد الفتاح عبد الواحد موسى سودو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. marka hore sheekha iyo kuriisama dhammaan horta waa idin salaamaya mawduuc horta mawduuc aad muhiim u ah oo ahay walow aan kadaal ka soo gaaray oo iga tagay oo iska mashquulsanaay laakiin insha Allah fiidiyoga bilowgiisaan dhageysan doona yani wax yar oo mas'aladu sheekha ka hadlay aad ay u muhiim yahay waxaan rabay yani tusaale yar oo aniga igu dhacday gabdho badan iyo dad badanna uga digay inaan xoogaa yani boonti yar in la tilmaamay ay muhiim tahay aan jeclaystay inaan ku darsado sheekha mas'alo ma qabo haddii ay suuragal tahay la ogol yahay waa codsi aniga waxaan ahay horta darawal ka shaqeeya magaalada muqdisho oo haddaad taqaaniin bajaaj yani tusaalaha cajiibka ah oo la kulmay maadaama waqtigan uu kaaban yahay aan jecla inaan soo go waxa weeye tusaale cajiibka aan la yaabay gabdho oo aan garanaya soo qaaday ayagoo u socdo meel xalfad ah yani markii aan soo qaaday waxay iga codsadeen meel yar oo gabdhaha isku diyaariyaan oo intii xalfadda la gelin inaan sii marsiiyo xaafado badanaa soo dhex marnay magaalaan soo dhex marnay way xijaabnaayeen bacdin meeshii loogu talagalay inay isku diyaariyaan markay mareen ay soo diyaariyeen yani tabaruji waxyaabo badan ay soo muujiyeen yani waxaa cajiib ah oo aad aan ula yaabay markii hore wax na dhibaateynaya ama dhalinyaro nafoodeynaysa maan arkayn markii ay meeshii ay soo mareen oo yani tabaruji waxyaabo aan aad u dhibsaday isku soo sameeyeen waxaa cajiib ah suuqii iyo meel weliba xitaa carruurta waddada taagneed inayna aflagaadeynayaan ee nala hadlayaan oo dadka dhan waxaa malaysaa inay noo wada jeedaan yani taas waxaa tusaale kugu filan yani qofka xijaaban in wax dhibaayo iyo wax musiibo ama wax fitan ah inuu la kulmiyo yani wallahi tusaale aad ula yaabay waa yani waa fi nafsi alwaqt markii intii aan soo marnay wax nala hadlayo male markii ay tabarrujkii iyo taraaxada iyo waxyaabo kale ay soo xirteen waxa waaye waa fitan iyo buuq iyo suuq iyo dadka dhan inay wada jeedaan amood markaaba hoos ula hadlay bal tusaale ka dhigtaa dheh haddaayan waa soo soconay haddana waa soo soconay markii gabdhaha walaalahayna waxa waaye
taasna maxaan ku idhahdaa ayagana waxaan jeclaysta maadaama gabdho badan zoomka ay ku jiraan inay tusaale cad ay u noqoto gabadhii aanan rabin in la foodeeyo inay xijaabkeeda iyo asturnaanteeda ay ku dadaasho السلام عليكم وإذا كديري شيخنا ما سيا كنت سمع ما سيا السلام عليكم وعليكم السلام وما سنتهي عبدي واحد موسى شيخ سعيد أنا تصالحها سي دبقلايا ولا كان عبد واحد وحي عن كان لنا عاودا ودريال كدمرك أدنى وأودج يستيرونتي ويلكاس قيمها بدن درب البجاج تاع مقالة كشقة يستا درينكيس وآد أسر يرونتي ما إسته كرنا waayahan dambe waxaa soo badanaya baraha bulshada isticmaalkooda inay gabdhihii dharkii ay soo dhigteen adoo ogaa gabadhii inay maxaajabaad tahay oo aad u asuran tahay quruxdeeda iyo xijaabkeeda markay wadada marayso ay ka hor imaanayso markii aad baraha bulshada furto ayadoo si kala ah laga fiican yahay qaabkay u labisan tahay dhibaatadaas gabdhuhu ayaga isugu wacan in la fawdeeyo oo halis badan ay gaarto arrintaasi suurtagal ma noqon kartaa قلت الله سبحانه وتعالى يوم عرفة ما أنت معها النبي صلى الله عليه وسلم آياتي كسو دكتي وحي هيت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا دينتي نورت وح والبا وين التسطي وين نوشيكتي وحي نقل من مجره قبل وحي حجابك الله قلت لقى إني أحرطه وحوي أيدا آودتي الله إلى اليوم كبعدنا bulshada loo ilaaliyo iyo ummadda gabadhu ha fahamto aqliyadeeda iyo aqliyada raggu inay kala duwan yihiin hana fahamto gabadhu marka ay soo qurxiso ay soo bandhigto ziinataha because ilaahay subhanahu wa ta'ala yubdina ziinatahunna ba yiri markay soo bandhigto inay raggu ay u akhrisanayaan ay u fahmayaan inay gabadhani wax doonayso laga yaabaa inay tahay gabadhan aydu sida anay isu qurxiyay waayo annaka dumarka halkan qurbaha nala jooga waxay ku oranayaan makeup-ka ana marsaday maryahan igu dhajisan ana soo iibsaday aniga isu qurxinaya maryahan gaagaaban aniga ayaa isu xidhanaya maryahan bawdadeeda aan ragga tusayo dabada soo dhigayo aniga ayaa doonaya waxan xaqiiqatan waa been waayo haddii ay gabadhan ay doonayso ilaa ana soo qurxiyo makeup-kan ana isu soo qurxiyo nafteeda soo qurxiye waxaynu oran lahayn ba caawa marka seexanaysid makeup isla dhac oo makeup ku seexo wama gurigaaga makeup marso mid sameynaysaana ma jirto marka dabada loo boodayo ayaa makeup-ka la isla wada dhacaya haddana waxaa la oranayaa maxaa nolola hadlay xijaabkana asalkiisu waxa weeye falaa yu'dayn فلا يؤذنك وحوية مركي قفك وقرطو قبضني ومؤمنات ومحتشمات حجاب كذا ولا قاب سنة إن كاستو أركنا بقول مدة أيانو أرقني رجع ودنا كنا نشوفنا قالدي مركي صومرته أنا مراكز سمية شخصيا ملاحظات كسمية مركي صومرته gabadh muslimadii oo xijaaban oo jilbaab xidhan oo inan yara oo dhaban wanaagsan yani inan qurux badana ninka gaalkii ma si eego waa gaal iska da muslim ma si eego markay soo marto mid inan taala da'a oo ay isku dherer leeyihiin oo ay isku hilib leeyihiin oo laakiin isa soo qaawisay oo laabtii halkan soo dhigtay bawdihii soo bandhigtay gaale iyo muslima way eegaan qofkii la ka cabsanaya mooyaane qofkii la waa la eegaa muxuu markaas maxay ku tusaysaa waxay ku tusay xijaabka ay isku ilaalinaysaa walaashay nabiguna sallallahu alayhi wasallam xadiidkii saxiix ahaa oo inoogu tilmaamay gabadhii ugu horreysay kabadha dheer xidhatay ee gabadh reer bani israa'iila bay ahayd oo ragga soo jeedsatay gabar gaaban bay ahayd laba dumar la saaxiib ahayd oo dhaadheer marka waxay tiri markaan wada socono saddexda iyadu dumarka dhaadheer quruxda badan un baa la eegaa ee soo qurxiyay maxay samaysay marka kaba dhaadheer bay soo samaysatay kaatun cadar ka soo buuxisana way soo xidhatay sidaas ragga intay samarra isu hor haabisa
waxaasoo dhan markaa waxay noqotay in raggii ayada ay raacaan ay daba galaan way aydiba qurux ziyaada la timi waxaan leeyahay dumarow يعني إلهي سبحانه وتعالى وكان يلي يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن وجدد جلباب وحوي إن قبرن أي إلى وجدد جلباب marka gabadhii doonaysa in la aflagaadeeyo ama lahada laga sheego de wata quruxdeeda banka soo dhigaysa tii doonaysa xishmad iyo ilaahay inay ka cabsatana de wata jilbaabka ku soo asturtay marka waxaan leeyahay dhaahiradani waa dhaahirad aad u xun inaynu idhaahno hablaheennii ayaa suuqa maraya oo soo wada qurxiyay hadhowna ku doodaya xaqaygii weeye xurriyadaydii weeye jirkaygii weeye wejigaygii weeye cidiyaga hadlin waxaan u arkaa inay taas ila guracan tahay oo dee qof intaasoo dhan isla soo dhacay yaan layla hadlin dee maha hadal xaqiiqatan gaaladu waxay iga qosliyey gaaladu mid baa la yidhi why do you put a makeup maxaa say soo qurxisaa waxay tidhi see raggu ila hadlaan waa gabadh gaalada cad waxay tidhi waxaan maryahan usoo xidhanaya aan makeupkin soo marinaya I want attention in layla soo hadlabaan doonaya in laysoo eegaabaan doonaya marka walaalo haddii aad doonaysa in lagula hadlo lagula haasawo dee in si xun lagula hadlo lagu farafareeyo farta lagu taago oo dee waa ku kaa haddii ilaah ka cabsanaysidna dee waxaanu leenahay waxaanu ku biirana raggale raggow dumar hala daryeele adiguna isdaryeel wallahu acla waaclam waqtigeeduna wuu isguraya malaha su-aashan baa inoogu dambaynaysaa u malaynaya ها شيخي waxaan rabnaa inaad dardaarankaaga ugu dambeeyay aad nala wadaagto insha Allah dardaarankaygu waxa weeye horta rag iyo dumarba ilaahay in laga cabsado ilaahay aynu ka cabsano waayo maalinba ina sugaysa jirkeennu iyo indhaheennu iyo dhegaheennu iyo harageennu iyo carabkeennu lagu markhaati furayo maalin baa imanaysa aanaynu been sheegi karaynin maalin baa imanaysa la odhanayo wixii lagu siiyey nicmadii lagu siiyey caafimaadkii lagu siiyey quruxdii lagu siiyey awooddii lagu siiyey maxaad ku samaysay ujeeddadu ilaahay noo abuurayna way cadda wamaa khalaqtu aljinna waalinsa ilaa liyacbuduun weeye waxaan leeyahay maalinta ha laga cabsado waayo waa maalin ah yowma yafiru almar'u min akhiihi wa ummihi wa abiihi wa saaxibatihi wa baniih waa maalin ah yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ila man ata allaha biqalbin saliim waa maalin uun ilaahay kusoo gunaanaday qur'aankiisa markuu yidhi wattaquu yowman turjacuuna fiihi ila allah waxaan leeyahay rag iyo dumarowba war aynu maalinta ka cabsanno ayaamahana waa ayaamo wanaagsan waxaynu ku jiraa awal tobankii ugu horreeyey 10 dilxija nebiguna sala allahu calayhi wasalam waa kii yidhi maa min ayaamin alcamalu saalixa axabu ila allahi fiihina min hadihi alayaam waa maalmo ilaahay uu camalka saalixa aad u jecel yahay xataa saxaabada waxay yidhahdeen yaa rasuula allah wala aljihaadu fi sabiili illah qaala wala aljihaadu fi sabiili illah هل لو فائدة لقى فائدة زاد هنو نقضان وتزودوا فإن خير زاد التقوى إلهنا لقى عبصد وجزاكم الله خير هل يسنسوا الدعاء وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ سعيد راقي إلهي سبحانه وتعالى هكو بركايو وأنا كاغا ما دعلنا رنتي وقتي قيمها بدنا عاونا لقادتي waqtiyo kalena waa isla qaadan doonaa haddii ilaahay ka dhigo sida aad ballan qaaday oo dhegeystayaasha aad dareemaysay siday u danaynayaan muxaadaraadkaaga iyo cashiradaada qiimaha badan runtii waxaan rabnaa inaan dadka Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan qoysaska Soomaaliyeed culimada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay doorkoodii ay mar kasta qaadan jireen ay sidii u qaataan oo ay insha Allah ta'ala la wadaagaan waqtigooda qiimaha badan Sheekh Saciid آذان كاغا مدعلنا يا بارك الله فيك كلن دنبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وما سنتين إلهي سبحانه وتعالى إذن كهبال مريو ضدك داونية maxaa u jirtay